injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee Dareer Kowcid oo maalmihii laga soo gudbay socdaal ugu maqnaa magaalada Brussels ee cariga dalka Belgium iyo sidoo kale magaalada Abu Dhabi ee cariga dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland kadib markii uu ka soo degay gegida diyaaradaha Cigaal boqolaal ka mid ah shacbiga Hargeysa ku dhaqan ee taageerada u hayay xisbiga cadaaladda ee Dareer Kowcid ayaa halkan waa barxadda hore ee garoonka diyaaradaha Cigaal si weyn ugu soo dhaweeyay hogaamiyaha xisbiga Kowcid iyadoo hareer socdaan xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi saacab sawaxan alaalas mushharad ay si weyn isula helaan jiibta iyo jaanta iyaguna ku dhawaaqay ereyo kala duwan oo si weyn taageero ugu muujinayaan hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee Dareer Kowcid sidoo kale waxa hoostaankeeda gaar ah mudan in isla goobta soo dhaweynta hogaamiyaha loogu sameeyay la dhigay rooga cas oo shacbigu ugu talagaleen inay ku qaabilaan hogaamiyahooda hogaamiyaha injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu go'aan sharaxaad ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa oo ku tagay magaalada Brussels inagu inta iska yurusanay madaxtooyada Hargeysa ayaan niri anagu bari mayna nimankaas ay ku noo soo bariya hadaba ku lacagta bixinay looma tagin ayaa laba jeer yimi marka halka marayso ayaa la soo hadlo xalay warsan si maahe dawladaha dooniya inay arintiina gaar ka dhigaan gacan siiya oo u taga Nairobi ma tagin Brussels ma tagin marka anagu dawladda ku taageernay in la gelin shirkaas oo day isku yimaadeen qabaa'ilkan dawladooda sheegtay ayaanu ku tashanay inaanu pressure saarno dibadda ka ololeyno dadka bixinaya doonaliska bixinaya deeqaha la hadalo yuriyunka la hadalo halkaasaan ka bilaawno waxaan jeclaan aniga iyo maxamed Ali Khaliif iyo Professor Ahmed ibn Ra'an jeclaan oo mar dambe yimi Professor Ahmed wuxuu yiri waxaan tagay bariga ee galbeedka maadaama aan toog tagay uu naga cudur daartay anagii baa tagay waxaan doonayaa anaga saddexda soconnaa hal sheekhan uu la weyntii oo nin wana dhannahay inaan gaalada ku taagooyo gaalada waanu eerboorkan ka degnay eerboorka waxa joogay ninka safiirka Soomaaliya ah ninka safiirka Soomaaliya waa inaan sidii ah waana xidid lahay waana isnaqaano dadkiisu soo dhaweynayay halkii laga qaadanayay shandadaha ayaan ku kulanay isla ka taswiray inaga sharciga muhiino yaala sidii nabad ka soo cusubiyadaha rajamada cadaan ku isla taagan midna yiri wada weyn isla taagan oo salaamin lameel ku yaala horta ma jiro moogta Soomaaliya waxa sidoo kale si qoto dheer u dul istaagay kulankii uu la qaatay madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aragnay Farmaajo haddaan aragtid magaranaysaa mobilkayga waxa ku yaala Farmaajo Nairobi Farmaajo Dubai Farmaajo Muqdisho وأنتم مدحونا إبتعاصوا وحن كذا يسأل كهيسي تليفون نحن نسمعانوها أنا أبي أغانوها نبي كل أغانوها ونحط سدينا لكلنا والله كلنا وحن وكلا وحي أنا كل حملني إنه الدبان كالداروديس بيسووا ده وأنا كل سنة وكدارت الدول إنه صوت ما كذا وكدارت إنه هو بصوتي وكدارت waxaan ku soo heshiinay inaan wararka xanabta la iska joojiya dagaalkaas sidii uu dadka Cabdiweli reerka uu yeelanayo oo si dadban ugu sheegay inaan dagaalkaas dagaal qabiil ahayn ee fara ka qaada wada hadalada Soomaaliya la soo celiya ayaan ku heshiinay wax dambe Soomaaliland laga sheegay xanabna aan joojinaa ayaan ku heshiinay dadku waxay ka dhaxeeyaan haddaan aydan desin jawiga ku wada hadashaan oo isku aamintaan oo ku garantaan waxa tan col wada fadhiya noqonaysa saaxiibnimada ka horeysa iyo conference building ka horeysa gorgorta ka horeysa hogaamiyaha injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu si weyn u diray mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland oo maalmihii laga soo gudbay ereyo kulida hogaamiyaha xisbiga oo cid warbaahinta marinayay nimankan hadli sharciga baarlamaan baan hadday sharciyaan hada sharciye ku joogaan iyagu sharciye ku joogaan 5 sano la doortay 5 sano waxay marayaan 14 sano marayaan ani hadday maanta sharci ku joogaan waa laga xushoon lahaa sharci kuma joogaan
dhanka kalena waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland xilligan ka arrimiye Muuse Biixi Cabdi anagu waxa leenahay madaxweynaha waxa weeye shaqadiisu waxa weeye inuu dadka isku soo jiidaa weeye isku soo jiido inuu dadka mideeyaa weeye inuu dadka horumar keenaa weeye anigu maanu arag weli madaxweyne ka jecel wada shaqaynta in la iscaayo oo la kala doo ficil ka jecel waa noo kow lagaan la ficiltama maayo Muuse Biixi yani waxa weeye kursigu noo fadhiyaa haddaanu ficiltano wada ku jiri maayo ma jiri laakiin hadduu ganow waxa weeye inaynu ka fikirnaa oo eegnaa toddoba bilood hortay dalkaynu muu ka fiicnaa mise uu ka wanaagsan yahay maanta taa in laga hadlaa wey waa ina taa laga hadlaa ama Faysal baa farmaajo u tegay oo salaamay ma ahayn waxa la hadlayaa war 7 bilood uu Muuse haye kursigani hala isqiimeeyo maynu ka liidanaa mise waa ka fiican dalka hada leeyahay haddaanu aragnay inaanu capacity dalka lagu wada aanay jirin waa ka tashanina hogaamiye injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale si weyn u bogaadiyay Cali Khaliif Kaleyd oo isagu socdaalkiisa ugu dambeeyay ku tagay magaalada Brussels ku wehelinayay xagga la saarayay aageeda Cali Khaliif waa ninka Soomaaliya wax khabarsan waa ninka ugu cilmi badan ragay waaweena ka haray sharaf buu ka joogaa iyo samataliyo markaas anaga garanaysan oo tagshiilayaal aha shaqaan askar aha ayaa hadda halka ka qalaaday waan ogeeyay dagaalkii la naga qaaday media wala naga adkaaday diblomaasiyada wala naga adkaaday inta baana u jawaabay waxa la yiri Faysal waa madaxweynaha afayeenkiisa waxa la soo gaarsiiyay hogaamiye injineer Faysal Cali Waraabe oo qayb lixaad ka soo qaatay hanaanka hor socodka Soomaaliland iyo sidoo kale dhismaha dimuqraadiyadda iyo amniga Soomaaliland ka taabagalay ay si weyn xilligan saraakiil ka tirsan xisbiga oo cid walaac uga qabeen safarkiisa ugu dambeeyay in ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabaan iyadoo loo aanaynayo socdaalkii uu ku tagay magaalada Brussels oo maalmihii laga soo gudbay uu kulan uga soconayay xubno ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka iyo sidoo kale kulankii uu la qaatay madaxweyne Farmaajo balse suuragal ma noqon oo hogaamiyaha iyo sidoo kale boqolaal gaadiid ah oo ay saareen dadweyne tiro badan oo luxaya calanka astaanta waa xisbiga cid waxa hadda loo galbiyay hoyga ka degay gudaha Hargeysa Faysal Maxamed Aadan Faysal TV caalamiga Soomaali Cable Hargeysa